haddii aad i ixtiraamto waan ku ixtiraami doonaa haddii aadan i ixtiraaminna waan ku ixtiraami doonaa sidoo kale anigu waxaan matalayaa naftayda adiguna waxaad matalaysaa naftaadii ixtiraamku waa waxa ugu fiican oo dadka quluubtooda loogu tago ku kalsoonow naftaada waa ay ka argagixi doonaan cadawyadaada si kastoo ay awood u leeyihiin kalsoonida waa sida tirtiraha oo kale tirtiruhu waa u yaraadaa markastoo ay qaldaadku bataan ku kalsoonaan hana ku siraysan sirtaadii midka kaga sheekeynayo siraha dadka kale maxaa yeelay adiguna sirtaada maalin uun ayuu ugu sheekeyn doonaa dadka kale ha ku mashquulin naftaada ka fikrista maxay dhaheen ama maxay sameeyeen ku kalsoonow rabbigaaga kadibna naftaada kalsoonida mida ugu sarayso waa in aad ka aamustaa marka ay kuu jeesjeesayaan dadka kale maxaa yeelay adigu waad istaqaanaa qofka aad tahay iyaguna kuwa ay yihiin muhiim ma ahan sida ay dadka kale kuu arkayaan ee muhiimadu waa sida aad naftaada u arkayso hawaydiin beenaaluhu maxaad been u sheegtay maxaa yeelay waxaa qasab ku ah inuu been kale kugu jawaabo wax walba waa ay dhammaan doonaan adduunyadana uma istaagi doonto qofna nolosha sidaas ay i bartay sidoo kale waxay nolosha i bartay inaan ixtiraamo caqliyada dadka balse aanan ku kalsoonaan xayawaanku waa halis marka uu gaajaysan yahay balse bini'aadamku waa halis marka uu dheregsan yahay caqliga iyo carabka lid ayay isku yihiin markuu caqliga yaraado carabku waa u dheeraadaa ha fiirinin wax ku soo dhaafay ilaa laba xaaladood uu mooyee kow inaad ku tusaale qaadanayso labo ama inaad aqoonka baranayso mooyee cali bin abi taalib wuxuu yidhi markii ahlulxaqa ay ka aamusaan baatilka ahlulbaatilka waxay ismoodaan inay saxan yihiin ha quusan haddii aad dad mool ah ku dhacdo maxaa yeelay dib dambe ayaad ugu soo bixi doontaa adigoo awood leh ilaahayna wuxuu la jiraa kuwa sabra wallaahu maca asaabiriin ma ahan midka ku dilay kan rasaasta kuu furay ee waa midka riyooyinkaagii baabi'iyey ha ka cabsanin midka aanan wax aqrinaynin balse ka digtoonow midka aanan fahmaynin waxa uu aqrinayo yaysan ku sirin muuqaalkan sare ee adduunyada hana umoodin degnaanshaha qubuurta dadkoo dhan inay ku jiraan jannada hala yaabin shimbiruhu marka ay kaa duulayaan markaad u soo dhowaato adigoo cunto u sido shimbiruhu waxay cagsi ku yihiin bini'aadamka qaarkood waxay rumaysan yihiin inay xorriyadu ka qaalisan tahay cuntada ha murugoon waa adduunyo ee ma ahan janno